بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الشرف المركز الجوكتي وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسود هذا دعوينكم وقدم بيني شيكينا وعالم ككدعي وحيالا وياب كبدنا دتك سوماليات أنك يابي وحيالا نيو عصبنا معها وأركتين فيسبوك يدا يوتيوب يدا مركز سه قبل الصوماليات أو دالك مريكنك dhibaatada ku dhacday oo gabadheeda laga qaadanay cunugeeda waa aragteen nin geesi dhale oo daba caseer ah ayaa kabta u saaray waa aragteen heer wuxuu la gaaray gaarigiisa inuu u aado oo $8,000 ka soo bixiyo oo dhax lacagta waa tan ana bixinay gabadh yaa la qaaday cunugaas oo askari la dooday waxa loo baahan yahay meeshan karti iyo geesinimada waa loo dhastaa ninkaas nin sheekh ay waaye oo halgamaaya ah gabadhaas waa u halgamay halgankiisina waa ka mari dhaleeyay marka waxa loo baahan yahay qof kasta Soomaaliyeed inuu dameerkaas lahaado dhalinyaro way buuxdaa ilaakum samdidee waxyaal dad badan oo si aqoon ah sida lawyer oo kaleente dad waaweyn oo kaleente dad kasta Soomaaliyeed meesha waa jooga waxa loo baahan yahay inuu la saaxiibo warjaaliyada waa inuu gacmaha isqabsataan gabadhaas aad iyo aad ugu xumaad leef lagu jiro oo saas loo dooday oo askari dhahay anaga waa nolo soo wacay dhibkaas jiro war gabadhii way caafimaad qabtaa waa been war alooka gabadhan uu leeyahay ninkan leef oo gilina wala hadla wala dooda laakiin ducadiisa Ilaahay waa aqbalay doodiisa Ilaahay waa aqbalay marka niga galinka dambe niga sheekay qaybta dambe bal walaalayaal waxa loo baahan yahay inuu gacmaha la isqabsado gabadhaas waa loo wada duceeyay Soomaalidana u duceysay ducada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa naga aqbalay anaga dhan qof kasto meel kasto joogo qof cunugiisa inuu macna dara loogu qaato diinteena ma qabta qofka bini aadamka inuu qof kale ama diriskaada anabta ama qof kale Soomaaliyeed oo maanta dhaxdo gabadhan way xanuunsan tahay dhibaato leh gabadha haday xanuunsan iyada Soomaali ma aha ma qaato iyada hayso maxay ugu ciisa cadow iyo gaal kale oo cunugaas ficil uu soo sameeyaa oo diinta islaamka laga leexi karo oo dhaqan xun la baran karo waxa loo baahan yahay inuu isku naxariiso qofka muslimka simbiri dad muslimana inuu isku naxariisano oo isku gargaarno oo waqti kasta loo baahan yahay marka gabadhaas dhibaatada ku dhacday anaga dhan ay noogu dhacday kaliyeed kuma dhicin Soomaali dhan ay ku dhacday muslimiinta dhan ay ku dhacday laakiin alxamdulillah natiijadeeda waa laga sal gaaray bal insha Allah gabadha markay dhibaatada ku dhacayso bal waa kane bal ila daawada ilmihi waa ولا قاطي المي وأويان ولا قاطي مسلمين لا أصدق ومن الجماعة بس كان تبقى فاميلي قاعد يقول لك هالسعيرية قضية قتال فاميلي إنه زيف يقول لك هالسعيرية لكن هذا وحوي علمي هذا القادر يا سمع ما هو القادر ناقشت الله كحاله أصلاً الوالد ما نكتب واحد من كائن واقعتين علمي وين أساس الوالد علمي ولا قاطي إذا شرف علمي ولا قاطي علمي ولا قاطي يقول الصومالي ليش تحمل علمي ولا قاطي What reason are you taking a baby? علمي ولا قاطي الصومالي خاصة علمي ولا قاطي idinka buuqa iska daaya Soomaalida dadka علمي ولا قاطي كنت كل وقت صلى الله عليه وسلم علمي ولا قاطي هذا Hello. أنا شكرا. Hey, she knows me. Why she ignoring me? I know. Listen, no, dude.
Get away! Do you really want their family's business on the air? This is my family. No, they're not. Yeah, she's my family. This is my family. This is my family. waa This is my tahay family. waa That's aragteen her sister. That's her sister. kaasna iga sheekay ma horaan iga sheekay wixii Yes, dhacay this is my family. horena waa u daabateen facebookna waa ka daabateen Yes, this is haddana waa our daawa baby. doontaan gabadhii Our child. qaybtii hore ahayd qaybtii labaad gabadhii cunugii waa loo soo celiyey waxaa loo dhiibay habaryarteeda gabadhii looyara loo qabtay looyarkii iyo dabacaseer iyo gabadh meel ay iskugu imaadeen alxamdulilah ilaahay gacanta cadowga waa ka soo bixi cunugii weli halgankii uu ku jiray dadkii jaalidii oo isku keenay waa gabar oo caafimaad ka shaqeynaysa waa wiil looyarada ah waa wiil kaleento sidoo kale waa gabar kaleento waa gabadhii wax dhashay wax dhan oo meel iskugu keenay xalina waa aragteen live oo soo galay intaasoo kuna daabatay intaasoo 4,000 iyo 500 waxaa ka bixisay comment iyo 5,000 markii waxaa loo baahan yahay inuu simbiri dadaalkaas oo kale inuu la sii laba jibaaro alxamdulillah ilaahay gacanta cadow waa ka soo bixi ducadeena ilaahay waa u aqbalay war dadkan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan way dhibaataysiin ama Yurub joog war America joog ama Aasiya joog meel kasta dadkeena Soomaaliyeed waa ku dhibaataysiin waxay ugu dhibaataysiin xagga ciyaal Sweden oo kale hadda wiil waxaa joogo oo YouTube soo galay oo saas oo kale saas family ciyaalka loogu qaato ciyaalkii dhanaa laga watay wiilkii hadda YouTube oo furtay ale caabi wiilkaas yar ala caabiyo ilaahay aloo duceeyo gabadhan si loogu duceeyo maamadaasna ilaahay loogu duceeyo si ilaahay ugu soo qaado cadow war waa ka dareen war ilaahay wadankeena nabad aan ugu dhigo wadankeena waxa noo dhaamale wadankaada aan dareen ku joog waay wadankeena aad aan u jecelnahay boqolkiiba 70 waa dhalinyarta waa inoo gacmaha isqabta siyaasiyiinta waa inoo heshiiyaan dalkeena soo nabad iyo xasilooni ilaahay noogu dalkeena naga badan dalkeena wuxuu noqonaa dalka oo dadka Soomaaliyeed iska dhaafeen Afrika dhan wadanka qoodiya noqonayna oo la soo shaqo tago insha Allah laakiin inoo markasta ducada badino oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xirnaano oo iska dhaafna qabyaalada nin jeclaysi iska dhaafno ala ka cabsi badino oo Soomaaliya leh Soomaali waaye wax qabiil iyo hebela tahay iyo laandheera tahay iyo laangaaba tahay iyo laandheer waxa ninkii shabaab naga celiyo orod naga celi laandheera tahay orod naga celi laandheera dadkaada u noqonaysa laandheera kuma tii waxaan dilaa laandheera kuma noqon waxa loo baahan yahay laandheera waxa ninkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xirnaado kali Allah subxaanahu wa ta'ala ninkii ku xirnaado diinta Allah ku xirnaada laandheera cid kale inta ahman ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadan seema wada uumay cid bini aadan wax dhaamale barka walaalayaal iskaraab noo saar noo la gareeya inoo wadankeena ilaahay nabad noogu dhigo ducada alla badiyo qof kastoo muslim ee meel kastoo jooga duceeyo barka waa ka assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh